Soomaali waxa kala tafaraaruqay oo u yeelay inay yeeshaan gobollo qabiilo cabsidii baa ku yaraatay adduunkii baynu raacnay oo aynu danaynay oo aynu qiimaynay tii weyneed oo aynu in la sugaysana waynu ilownay taasaan kaga baxayaa waxaan anigu ahay nin ka soo jeeda gobollada waqooyi waxaan ahay nin u dhaxeeya oo British ah waqooyi koonfur waqooyi waxay tirsanayso nin goobjooga ayaan ahaa dawladdii horena ka soo shaqayn jiray waxaan ahay ninka keliya oo haddii aad garab gashaan isu keeni karaya labadii gobol oo koonfur iyo waqooyi la kala oran jiray oo hadda la kala qaybiyay oo laga dhigay ma sha Allah waxaan ahay nin fulin kara wax badan oo khaldamay haddii aan dib u noqdo khaladkii ugu weynaa wuxuu ku dhacay 60kii nin sixi kara baan ahay haddii aynu helno oo la isu keeno gobollada wax badan baa shaqaynaya wax badan baa inoo hagaagaya waxbaynu wada arkaynaa inta meel baynu jeesanaynaa waxa imanaya cadaalad baa imanaya cadaaladdaanu ka shaqayn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo amni baa la raadiyaa war amniga Ilaahay baa inoo haya haddaynu Ilaahay tala saarano oo qulubteena meel u wada jeedino amni waynu helaynaa salaam nabadgelyo amni wax walba waynu helaynaa Ilaahay baa inoo sheegay quraankiisa inoo ku sheegay waynu helaynaa amni laakiin meel kale haddaynu indhaa u taagno iyo beel caalam weligeena amni heli meeno weligeena saasaynu isku daba wareegaynaa sidaa baynu isku daba wareegaynaa isu meeraysanayna waxaan hadduu Ilaahay yiraahdo aniga iyo groupkaygu ka wada shaqayn doonaa nabadgelyada oo hadda dawladnimadii la bilaabay oo uu bilaabay sida garaadku inoo sheegay ra'iisul wasaare Ali Geedi maantana halkaa taagan waxba inoo dhisan waxana way dhiman yihiin waxa dhisanna dadkii soo qabtay waan uga mahadcelinaynaa oo sharaf iyo qiimo leeyihiin waxa dhimanna insha Allah inaanu ku darno baanu rajaynaynaa iyadoo ay ku dheehan tahay alla ka cabsi oo aynay qabyaaladii ka maran tahay baanu rajaynaynaa inaanu dhammaystirno waxa aanu ka shaqayn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo in aanu caasimadda hadda markaad eegtid markaan xasuusto waqtigii aan caasimadda joogay siday ahayd iyo maanta siday tahay waa kaafiye kala dheeri wadooyinkii aanu mari jirnay si jidka Sodonka ilaa Balaaksi iyo wadooyinkii la mari jiray oo aanu mari jirnay maanta waxaad moodaa inay noqdeen biyo fariis marka waxa aanu ka bilaabi doonaa inaanu caasimadda oo ah magaalo madaxdii indhaheena waa caasimadda Soomaali indhaheedu waa caasimadda haddii la hagaajiyo wax walbana way hagaagayaan waxaanu ka bilaabi doonaa insha Allah inaanu caasimadda hagaajino waxa aanu daryeeli doonaa ciidanka nooc kasta ay yihiin oo aad moodid inayna weli helin daryeel fiican inayna weli helin mushahar fiican insha Allah iyagana waanu daryeeli doonaa waxaanu ka shaqayn doonaa dadka danyarta inaan u sameeyno cusbitaal hadduu Ilaahay yiraahdo cusbitaal wax badan baynu qaban karnaa oo Ilaahay ina siiyay oo waxa aynu sheegayno ku qaban karnaa waxa aanu insha Allah ka maarmi doonaa gacan horsiga aanu beesha caalamka horsanayno nin wax la siinayo oo gacanta wax looga dhiibayo waa nin loo talinayo insha Allah Ilaahay baanu tala saarayna inaanu ka baxno gacan horsiga aanu shisheeyaha gacanta horsanayno haddii aynu taa ku jirno hadda maanta waxa la sugayaa oo la dhowrayaa in dhaqaale laga helo beesha caalamka walina way diidan tahay waxaanu ka saari doonaa dadka in aanu hayaga anagu isku filaano in anagu iska fayno in Ilaahay waxa uu ina siiyay aanu dadka u soo saarno si daacadana ugu qaybino Ilaahay og yahay baanu insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo ka shaqayn doonaa waxa aanu dhalinyarada oo boqolkiiba 75 u samayn doonaa inaan u abuurno shaqooyin in aanu dadka u samayno farsamada gacanta
inaanu u keenno warshado oo ay ka shaqeeyaan farsamada gacantana la baro oo iskuulo la keeno farsamada gacanta ah taa dhalinyaradana waxaanu ka shaqayn doonaa sidii ay u heli lahaayeen shaqo oo nin walba oo dhalinyaro ah hadda marka la eego ninka dhalinyarada ah markuu shaqo doonayo xildhibaan baa lagu xidhaa nin baa xildhibaan ba haysan wasiir baa lagu xidhaa nin baa wasiir ba haysan wasiirka keen baa lagu leeyahay hadaanu haysan shaqo ma helayo waxa aanu insha Allah haduu Ilaahay ilaahdo joojin doonaa waxyaalaha dhalinyarada lagu xidhayo oo looga dhigayo conditionka inaan shaqo bala siin waan insha Allah haduu Ilaahay ilaahdo joojin doonaa waxa aanu ka shaqayn doonaa wax kasta oo ay ummad isku imanayso wanaaga waxa aan hadalka ku soo gabagabeynayaa hadii aynu Ilaahay u noqono إلهي هدي أين نقول نوحل بون هلنا وحكست وين هلنا برواقع نقول دونا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد والإلهي إن الشكر نقول إلهي نمعو إن السيي نمع الله والله إن كذب ولي والإلهي دلبو إن السيي والإلهي خيرات بو إن السيي والإلهي بدبو إن السيي وحامار كينا إن دهنا إن فرنو dad kan aynu baryeena waxa guranaya boqolkiina laba laga siinaya oo halka lagu qabanaya waxaagii baa la guranaya boqolkiina laba laga siinaya aleeday beel caalam baa sugaysa waxaagii weeye waa macdantaadii waa kalluunkaagii baa la guranaya waxaan aynu eegno qabyaaladana aynu ka baxno qabiilkii qabyaalada la isku xidhaa qabiilku waa la tacaarufo laakiin aynu qabyaalada ka baxno sida xun u isticmaalayno aynu noqono dad walaala wax qabsada wax badan baanu ka bedeli doonaa alla ka cabsina ay ku dheehan tahay ilaahayna dadka waanu xasuusin doonaa kitaabka ilaahayna kor baan u qaadi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo mar labaad waxaan leeyahay dadka sharafta loo qiimaha ismadu ka mid yihiin salaadiintu ka mid yihiin ururada haweenka dhalinyarada barbaarta gaashaamina ka mid yihiin kulankan sharafta iyo qiimaha loo adigu timaadeen iyo sida aad ii soo ajiibteen iyo sida aad igu timaadeen aad baad u mahadsantihiin waan ka mahad celinayaa midaan ilaawayo maaha waa mid halka iga taala si qiimo leh baad ii soo ajiibteen sharaf iyo wanaag baad leediin iyo cisi waan ka mahad celinayaa